maanta waxaan idin hayaa video aad u muhiim ah oo in badan adiga codsateen oo ku saabsan protein powder wax badan baad dhahdeen sheekh ka soo hadal noo sharax nuucaala gataa marka videogan waa videoga kaliya u baahan tahay inaad fahantid daawatid meel ku kaysatid si aad go'aan kama dambayn ah waa go'aan kama dambayn ah si aad uga gaartid protein powderka mar dambe lacagtaada aad iska qasaarin wax aan caafimaadkaaga u fiicnayn dalna kuugu jirin daawo videogan ilaa dhamaad السلام عليكم يا شيخ احمد كله aad u culus oo ku saabsan protein powder marka waxaan rabaa walaalkay wadaad ila joogtid inaad ii subscribe geysid channelkan waqti badan baan geliyay aqoon badan baan kula wadaagaya adiguna intaas u caawi su'aal hadaad qabtiin waxaad ku soo weydiin kartaa commentiga marka taan horta u guda galno videogan waa video kaliya u baahan tahay inaad wax kasta uga ogaatid protein powderka haddaan videoga u guda galno waxaan rabaa inaan isku dayaa inaan ka jawaabo su'aalahan aad wajeedid screenka su'aasha koowaad waxa weeye protein powderku muxuu yahay muxuu se taraa si degdeg ah taas u rabaan waa jawaab adigu qofkaagan daawanaya ma u baahan tahay mase uma baahnin marmar badan baa la soo weydiiyaa sheekho ma u baahanahay ama aan u baahnayn go'aan kama dambayna ayaan qaacida ayaan rabaa inaan ku siiyo aad go'aan uga gaari kartid sideen ku kala kartaa midka wanaagsan iyo midka xun ayaduna su'aal in badan la weydiiyo wey ayadana qaacidaan ku siinaya meel baa ku qoranaysaa qaacidadaas markaad tagtay supplementary store-ka ayaad la soo baxaysaa dhac baad ku siinaysaa haddee qof wax fahansan baad noqonaysaa kan u dambaysa waxaa weye sheekh aduu midda isticmaasha mar badan baa la weydiiyaa aniguna middaan isticmaalo ayaan kula wadaagi doonaa videoga dhammaadkiisa iyo sababta aan middaas u isticmaalo marka horta midda koowaad protein powderku muxuu yahay muxuu se taraa waa supplement wey supplement maxaa laga wadaa waxaa weeye cuntadii markaad cuntid cunto kugu filan cuntid yaad wax yar haddii aad isleedahay protein powderkii maaha protein powder waa kugu celinaya waa supplement maxaa laga wadaa supplement cunto kugu filan baad cuntay proteinkii yaad isleedahay ama wax yar ka dhiman yahay proteinku waa midka ugu muhiimsan nafaqooyinka jirku u baahan yahay maadaama ay murqaha koriso baalkan dhaawacyada ay dayactirto iyo waxyaabo kale aad u badan sida tinta iyo waxyaabo badan ay koriso aniga waxaan u malaynaa tintayda protein kama baahan marka proteinku waa mid aad u muhiim ah aad ayuu muhiim u yahay maadaama uu aad u muhiim u yahay oo weliba dadka murqaha dhisaaho ay aad ugu baahan yihiin waxay baalkan leeyahay protein powder sidaas darteed ayaa loo sameeyey marka haddaad isleedahay cuntadii kuma filna wax yar iyo ku supplement garanaa supplement waxa weeye wixii badneed baa haystaa wax yar baa ku kororsanaysaa waa in si aad u gaarto goolkii aad baalkan la yidhaahdo aad proteinka ka lahayd tan kalena fahantidu waa baalkan waxa aad u isticmaala dadka bodybuilderka murqaha waaweyn maaragta anu bodybuilder maaha yeesasaa kaa khaldam anu waxaan ahay qof caafimaadkiisa ka taxadara bodybuilderska marka inaad fahantidu waa bodybuildersku ma aan dadka ugu caafimaadka badan talooyinkooda haddaad aragtid maaha inaad ku kalsoonaan kartid qalliimay maalin kasta galaan garbaha laga bedelaa jilbaha laga bedelaa waxaas caafimaad maaha maxaa yeelay ninkan halka dan uu leeyahay waxa weeye inuu stageka fuulo marka tan kalena fahantidu waa qofkaa taada ka qaadanaysa haddii aadan bodybuilder ahayn bodybuilder kaasoo raba inuu tago stage ninkaas taladiisa ma qaadanayso maxaa yeelay maalin kasta sanbabaha laga bedelaa beerkaa laga bedelaa markay wax qashina iska buuxsheen wax kasta oo murqa ku weynaanayaan ayay sameeyaan marka muhiimadan ku fahansiyaa waxaa weeye qofka murqa weyn yahay maaha uu ka caafimaad badan yahay ya tan kale midda kale rabo inaan oo mythka oo dadku aaminsan yahay waxaa weeye protein powder haddaan qaato bug baan noqonaya nin dhisan baan noqonaya taasuna been wey walaalka yaa iskaa khaldan it's not a magic pill waxaan caanaha laga soo sameeyey abaalkan leh haddaad exercise iyo wax muhiima aada ku darin protein powderku magic pill kaa dhigaya ma ila soc ya magic pill ma aha waa wax yar caawiye yar wey ya exercise-kii baada ku bedeli karin cuntadiina kuma bedeli kartid iska ilaali protein powderku cuntadiina ma bedelo exercise-kiina ma bedelo ya lacagta yaan lagaa siran markaad tagtid waxaa laga supplementary store-ka wiilka jooga inuu ku yidhaha maxay maala kan haddaad cabto murqaad yeelanaysaa 100 sano walaa kadib adoo garba dhuuban baad is arkaysaa marka inaad fahantid waa protein powderku wax macnaha weyn uu yahay male waa supplement waa kugu celinaya protein powderku wax macno weyn maaha waa supplement su'aasha labaad inaad fahantid waayo ma u baahanta mise uma baahnid horta uma aad baahnid protein powderka kow uma aad baahnid haddii aadan ahayn bodybuilder maxaan ka wadaa dad wuu ku waashay murqo waaweyn oo tartama oo raba protein tiradii ka batay oon horan uga soo hadlo dadka ugu caafimaadka badan ma aha ya dadka sidaad ahayn oo aragto qof murqa dhisan
sidoo kale 65 iskale murqa fiican oo kuskuusan iskale iska baashaala inaad u baanayn baa laga yaabaa maxaa yeelay sababtu maxay tahay protein kugu filan hilibka sida chickenka iyo doorada iyo hilibka nuuciisa kala duwan kan idihii kan lo'dii kan baalkan le arigii kan geeli yaad ka heli kartaa protein kugu filan digirtii iyo sarreentii cuntooyin kale dhan oo protein ku jira iyo caanihi marka uma baahnid tan kale uma aad baahnid haddii aad heli karto cunno isku dheelitiran cunnada isku dheelitiran macnaheedu muxuu yahay khudaar baa heli kartaa hilib baa heli kartaa waxaa heli kartaa bariis iyo galley iyo digir iyo cuntooyin fiican iyo cagaarkii nuucyadiisa kala duwan baa heli kartaa cunto isku dheelitiran video kale ka samayn doonaa haddaad cuntooyin isku dheelitiran oo hilib iyo u badan yahay weliba aad heli karto protein powder uma baahnid lacagtaada hilib iyo waxaad gashataa iyo cunto aad jeceshahay waxaa qasqas iyo wax bakti oo dhan ku gelin midda saddexaad ugu muhiimsan horena waa ogaada dadka ee tiktoka ku xiran waxaa weeye haddii aadan ogeyn meesha laga soo sameeyey oo aadan waddanka baalka dowlad uusan fiican ka jirin ama waddamada corruptionka badan sida Kenya oo kale ama waddan dowlad ka jira sida Soomaaliya oo kale taa kaa xaqiijinaysa ama sharci laga baqa uusan jirin protein powder-kooda waa taxadar dheeraad ah muujinaysa ama waa iska ilaalinaysa maxaa yeelay kambaniyaalka keena waxay awood u leeyihiin inay baalkan la yiraahdo kambani China oo kale ku yaala ama India oo kale ku yaala ay la hadlaan dhahan warbar iyo ciid yarta bac lagu soo xirtay baalka $1 naga sii adigana miskiinkan daawanay walaalkayo $50 laga siinay marka haddii aan sharci laga baqaya uusan jirin waxa aanu ma dhahay way jirtaa laakiin waxa jiri karta in waxaan wax fiican aan ugu soo darin sababta kale aan ku sheegay waxa weeye protein powder kan xataa wadamada aad u horumarsan sida Mareykanka oo kale kambaniyaalku sharciga ka baqayaan laakiin markii protein powder kala soo sameeyo hay'adda FDA da loo yaqaan ma ay soo marto ina fahantidu waa laakiin xogaa waxa weeye baqatin baa jiro haddii lagu qabto waa laga xirayaa kambanigaas mar dambe ma soo samaynayo marka mar raba inay ganacsi isaga dheelaan waxaa laga yaabaa inay quality-ga iyo safety-ga labadaba ay kasoo dadaalaan safety-ga maxaan ka wadaa waxaan markii la process gareynayo protein powder-ku wax la process gareeyay wey waxaan mar rajaynayaa meel ku qoranaysa pointyaalka xigmad wey waxaan markii la process gareynayo biro iyo qashin iyo balaayo bacteria haddaysan meel nadiif ahayn waxaa laga yaabaa inay wax sunuhu soo raacday marka aanu shakhsi ahaantayda protein powder China lagu soo sameeyo kale waligay ma kaa gadanayo waa fahmaysaa soo ma protein powder ku badan Australia iyo UK iyo waxa lagu sameeyaa iyo Mareykanka iyo kuwaas sababtu maxay tahay in ayaga ka jecelahay maan laakiin sababtu waxay tahay meel shaqo ka jiro oo company oo baqayo way oo ogyahay haddii maanta aan jirrado aan dacweeyo dowladda UK ku dacweeyo dowladda Australia ku dacweeyo in la xirayo yaa ogyihiin marka sawjeedid baad fakar yaa laga faa'iideysan فكر يعني لقى فايسن عافمات كذا مسؤولية داريتها حتى نسي سؤالنا مركب سيدي كوغان كرتا ميتك وناكسن يا ميتك كلا ووري وسؤاشي مهم سنة وسؤاشي مهم قف نصيب لا كان سوق جاري والله نصيب لا كان داونس سيدي كوغان كرتا ميتك يا ميتك كلا هرتا ميتك كوغان إن أتبال كان لي رادو كمباني قسمي أنا تقاندو هدي كمباني ويرو واحد ما أنت بقى كسو حرتي مقع بين كسو قرتي وحاس واحد اللي يقانون ما وحسيف تود أي الأوجه إسلام صار وراء صور شيء قبل وحلاقي يا ماشى لقوا صور بروسيس قريب ميل نظيف إن إنسان هاين بالكان ميتروس لايك ماكري أو حياة الصنع إن يكوتشرتو عفمات كعاد وحياة لين كرتو مرة كان بين حنا وحبل أقون هدوي هاي أو مقع بينهم كلا على دقة داير كان بين واحد صور قطو كلا برودكتيف مجدا ناس كان بين يلا وين أوبتيموم هيلث وحصل اللي رام علينا أنا ما يسبونسر قريب صار مرة كان موجود دن كمالي هذا جوجل كقريسيت وحافيرنا ريفيو كان بين كان مرة كقرتي ما لا يغانا reviews kaliya ku kalsoona waxa laga yaabaa kambaniyada qaar markaad Google ku qortid inay soo boodo ayagoo la dacweynayo loo haysto dadkii ku leeday dalka protein powder ku marka kambaniyadaas kana iska saaraba wax baro internet kaanad ku jirta ka faa'iideyso Google ku qor kambaniga marka magaciisa ku qortid arag balkan reviews arag habu ku yaala yaa iskale maxay tahay balkan sharciyaal iyo lawsuit ama balkan asoo la dacweeyay oo dadkii ku dhagan yihiin ma aragtaa talabaad ugu muhiimsan waa inaad taqaanid wax uu ka samaysan tahay very ingredientska waxaan magic pill ma ya wax oo daawo iyo wax aadan aqoon la isku soo ka dardarama waxaan caano iyo waxyaabo yar iyo wax la isku soo shiishiiday way marka baro sida loo akhriyo video aan meeshan kor kugu link garayn doono ama dhinacan yaan ku meelan kugu link garayn doona baalkan la yiraahdo yaad ka baran doontaa ka baro sida loo akhriyo ingredient listka wallahi muhiim waa videogaas daawo kana daawo marka muhiimadda inaad taqaanid waa ya maxaa ku jira horta cosmetic pill ma
haddaad videoga soo daawato waxaad dareemaysaa shayga u horeeya oo inuu yahay shayga ugu badan marka u horeeya ugu badano hadduu yahay sonkor baa gadanaysaa maana protein ma gadanaysa $50 $100 faa'iide meel baalkan dhigo marka tan kale ingredientskaas ama waxa uu ka kooban yahay wax xun miya ma sonkor baa baalkan ma saliida ma bakti baa mase waa proteinkii saxda ah oo rabtay oo caanihii laga sameeyey ama waxyaabaha kale protein high quality ah midda u dambaysa oo aad go'aanka uga gaari karto waa inaad barat sida loo xisaabiyo anaa ku siinaya waxaas oo dhan adigu notice ka qaado leh arda fiican noqo bes anaa ku baraya sida xisaabta baalkan loo geliyo xisaabi proteinka ku jira adoo isticmaalaya qaacidada uu Sheekh Axmed ku siin doono videoga dhamaadkiisa kadibna kii ugu protein badan ayaad qaadanaysaa bal pointiyalkaas ku cesho videoga stage ku cesho aan waa sii soconaya okay example baan ku siinaya very ingredientskii baan joogaa hadda kanoo kale maalin dhexe waxaan arkay TikTok-gayga dadka ku xiran rag badan baa waxaa dhahay sheekho ka soo hadal maadaama arkay wiilal Soomaali waxay siinaya maxaa la yiraahdaa serious mass baa la yiraahdaa serious mass waxaa laga wadaa waxay ku siinaysaa miisaanka ay kordhinaysaa marka tanoo kale inaad fahantid waa ingredientskii markaa fiirisid waxa ingredientska videoga hore waa soo daawataa umalaynaya maxaa kan waraya maxaa la yiraahdaa maltodextrin baa la yiraahdaa maltodextrin muxuu yahay maltodextrin waa bariis ama another carb protein ma ah oo inta la soo process garay nafaqadii laga soo sameeyey si calorieskaas faraha badan ay u yeelato yaa laga soo sameeyey marka kanoo kale weligaan u Sheekh Axmed haddaan ahay ma gadanayo maxay tahay sababta wax aan caafimaadkayga u fiicnayn baa ku jira waa carbs la soo process garay waxaad rabtaa shayga koobaad inuu yahay protein inuu yahay rabaa shayga koobaad yaa video hore dad soo daawatay shayga koobaad shayga ugu badan wey kan labaad kan ku xiga wey marka kan koobaad waa qashin aan jirkayga ku aaminayn caafimaadkaygan u xun baa kan ku jira anugu kanoo kale ma gadanayo tan kale fiiro haye taas carbs waa sababtu maxay tahay aan ku bal su'aashu ku weydiinaya waxay tahay haddii aad rabto inaad protein soo gadatid maxaa carbs uga buuxa ma carbs baan waa anigu bariis ma iska dhirjiyo pasta suugada ma iska dhirjiyo misaga ma iska dhirjiyo bahalkan la yiraahdo saliid ku darsado muxuu asagu igu soo samaynaya bal isweydii adiga yaa anigu protein baan rabaa inaad maskaxda focus garaysid waa yaa keep objective bahalkan la yiraahdo bahalka inaad maskaxda focus taabo markaad meesha tagtid store-ka tagtid waxaad leedahay maxaan raadinaya protein baan raadinaya marka kanoo kale waa arkaysa waxyaabaha ku jira saliid baa ku jirta waxaa ku jira carbs ama carbohydrates waxa loo yaqaano bariis iyo sonkor iyo qashin baa ka buuxa oo lasoo process garayay oo waxyaabihii nafaqooyin aad u muhiima laga soo saaray marka haddaad aragtid 133 gram iyo halkii serving ba ku jira marka kanoo kale anigu ma gateen maxaa yeelay saliid iyo waxyaabo kale qashin baa lagu soo gaaba burburi sababtu maxay tahay waxyaabo raqiis ah proteinku qaali waa ina fahamtid waa proteinka in la sameeyaa qaali waa laakiin kambaniyalku waxyaabo raqiis ah ay ku soo fiil gareynayaan si adiga miskiinka lagaga faa'iideysto ya marka tanoo kale saliid baa ka buuxda carbohydrates baa ka buuxa anigu haddaan protein rabo protein baan raadinaya haddaan carbohydrates rabo wax mid aan aqaan yaan soo gadanaya saliid haddaan rabo saliid aan aqaan oo saliidda raqiista sida sunflower oil waa saliid raqiista ama jirkayga ma la rabo saliid qaali fiican saliid fiican horta ma jirto laakiin waxaan rabaa saliidaha kala quality badan sida bag olive oil oo kale coconut oil oo kale oo ka quality badan yaan jirkayga siinaya marka wiilasha Soomaaliyeed oo baalkan waxay siinayay oo dhahayay waxaan arkay wiilal dhahay coaches baan nahay oo dadka kula talinaya marka anu hadda qofna xuma diidayo laakiin ina fahamtid waa adaan wax ku fahansiinayo go'aanka aad iskale 1250 baalkan calories baa ku jira 336 gram marka serving weyn waa inaad wax badan ka cuntid waa wax badan markaad ka tanoo kale ka cunaysa marka meeqay ku haynaysaa dhowr beri bay ku haynaysaa iyada dhan 50 gram oo kale oo baalkan la yiraahdo 50 gram oo ah protein wax weyn ma ah 50 gram oo protein wax weyn ma ah sababtoo ah serving kiiba weyninkii laga badi intaan oo kale yaa waxa ku jirta wax yar oo protein markastoo proteinka aad baalkan la yiraahdo qaacidadu waa soo socotaa degdeg wali markasta oo aad proteinka baalkan la isbarbar dhigaysid 50 gram waxaad barbar dhigaysaa serving size-ka ama baalkan la yiraahdo halkii qaadaba meeqa ku jirta qaadadeedu tan waa 330 gram waa baaquli dhan oo halkaas baaquli baa waxa ku jira 50 gram bis marka kanoo kale anigu shakhsi ahaantayda ma isticmaaleen qofna kulama taliyin protein darto protein nadiif soo gado
carbs daartona carbs nadiifa cun yaan company isugu soo kaajijiban qashin taasna isoo gudbo example kala baad baan ku siinaya taro kale waa aragtaa waa alaab nadiifa wey maxaa ku jira whey protein bas baa ku jira soo ma aragtay shayga koowaad whey protein waa wax carbs kuma jiraan saliid kuma jirto waxyaabahan kale natural flavors dhadhanka waxyaaba loogu daro wey tanoo kale colorka loogu daraasaan aaminsanahay waa kaas waxa rabnaa chocolate dhadhankeedii yeelato waa tan oo gamka waxa loogu daraa markaad mix garaynaysid inay cabitaan camal smooth camal ay noqoto tanoo kalena waxa loogu daraa dhadhanka macaanka intaasba waa aqaana laakiin tii hore waxa ku jiray milyan shay oo waxay yihiin aqoon adiga aad rabtid daarto inaad taas gadatid inaad mid kasta Google ku qortid oo study garaysid aday ku taala laakiin anigu midaan oo kale aad baan u jeclahay waa isticmaalaa waa clean waa san waxyaabaha san markaa rabo inaan weightkayga badiyo san u bedelaan ku baraya laakiin wali ila soc okay another example waa midaan soo ma aragtay alaab nadiifa wey ya soo ma jeed waxyaabo yar baa ku jira tanoo kale sucralose sonkor yar baa ku jirta laakiin company sidoo kale waxa loo ogolay sokorta zero ku dhahaya falaartada u jeedaa soo ma zero ku dhahaya because company waxa loo ogolay wax aad u yar yihiin oo baalkan halkii serving-ba tanoo kale serving-keeda waa aragtaa soo ma 35 gram wey halka 35 gram 35 gram waa wax yar waa 35 gram-kiya waxaad helaysaa meeqa protein 30 gram marka almost 100% protein nadiifa waayo wali qaacidadii way soo socotaa degdeg marka way isolate kan baan u isticmaalaa shakhsi ahaantayda example 100 xabba marketka ku taala aday ku taala mid ka gadanaysa okay marka san waa sida xisaabtan waa xisaabta ugu muhiimsan xisaabtan waa xisaabta aad rabtid inaad barato sidee ku xisaabisaa xisaabta inaad baratid waa percentage proteinka ku jira wuxuu la mid yahay amount serving kaas halkaas ku taala oo grams inay tahay rabaya ugu grams inay tahay rabaa oo loo qaybiyay inta protein ku jirta ya marka inaad fahantid waay tanaad soo qaadanaysaa si aad ogaatid meeqa protein baa ku jirta mid ka protein badan tahay matalan waxa tagtay bahalkan yiraahdo supplement store-kii baa tagtay markaasaad mid ka waxa rabtaa inaad kala ogaatid mid protein badan siinaysa maadaama ujeedkaagu uu yahay inaad rabtid protein bahalkan yiraahdo markaas kanaad soo qaadanaysaa korbaa ku bahalkan gelinaysaa tanaad u qaybinaysaa 100 baa ku dhifanaysaa tanoo kale 85% waa protein nadiifa protein waxa uu ka imaanayaa because horaan soo raacnay mugti protein kaas waxa uu ka imaanayaa protein kaas wuxuu ka imaanayaa waxyaabahan shayaalkan ingredients waxyaabaha ka samaysan tahay falaartida dad u jeedid halkaas buu ka imaanayaa waa whey protein whey ay soo caanaha markii la soo kala miirmiiray yaa laga keenaa marka halkaas 85.71 waa high waa example labaad baan ku siinayaa okay intaan example labaad ku siin maxay tahay sababta marka aysan 100% uusan u dhahayn ma halkan fiir waxa ku qoran 100% waa baalkan alaabtaas waa laakiin maxay 100% xisaabtan ay u keenin 100% waxay u keenin waxyaabo kale lagu daro soo ma jeed waxyaabo kale lagu daro waxa lagu daray chocolate baa lagu soo daray waxyaabo yar macaanayna lagu soo daray marka sababtaas darteed 100% protein ah lama samayn karo kugu celin 100% protein lama samayn karo hadii kale wax dhadhan oo la cabi karin oo dhadhan lahayn oo color lahayn bay noqonaysaa marka cunto la cuni karo si looga soo dhigo in la soo xoox ugu soo dardaro waa isla soconaa Soomaa midka example-ka labaad baan ku siinaa example-ka labaad waa midaan hore u soo aragnay waa baashi mass gainer-ka oo uga soo hadlay oo ay ku badnayd waxaan loo yaqaano maltodextrose oo ah tano 14% qaacidada horaan kugu soo sharax percentage protein wuxuu la mid yahay amount of protein oo loo qaybiyay serving size-ka waa arkaysaa Soomaa tan 100 marka ku dhifatay 14% wax ka yar 15% protein aad ka helaysaa ninku markuu go'o tariyo coachka waxa tiraa walaalo maxaa u isticmaalayaa sababta aan tasuuq u tagay ya waado tasuuqi tagay la yiro kale furnaatra aan soo gatay surwaal laga gado kale waa ya ina faantid waa maxaa raadinaysaa protein baa raadinaysaa proteinka midka ugu sareeya soo gado xogaa way ka qaalisan tahay laakiin waqti dheer bay ku joogaysaa maxaa yeelay tan serving size-keeda weynki ka bata soo dhowr beri ku joogaysaa waa fahmaysaa Soomaa tanoo kale protein kugu filan aad ka heshid sanaday ku qaadanaysaa maxaa yeelay laba baaquli maalintiiba hal baaquli baa cabtay mugta 5 maalin haye halkii maalinna 50 gram baad ka heshay taas qaada yar 30 gram baad ka heshay laba qaato 60 gram baad ka heshay
bala baris barbar dhig midii hore 35 gram soo 70 gram oo hal 70 gram 60 gram baad ka heshay tanna 336 gram yaad konton bes ka heshay marka hadda qashin baa lagaa buuxsho qashin baa lagaa gado marka inaad fahantid waa okay anu marka midda isticmaala waa kugu celinayaa meeshaas si fiican u soo faham meesha u baahan tahay waa halkan baad u baahan tahay areadan baa u baahan tahay ya sahal waa internetka waa ka buuxdaa naagaha dhansi garayo dabada kilkilaba baalkan waa fiirsataan caafimaadkaaga inaad waqti qaadatid aad wax ku baratid ma dhiba waa ardada waxa la barto marka taasaas waa haddaan ka gudba anugu midaan isticmaala anugu tan waa example aan soo qaada laakiin waxaan isticmaalaa baalkan la yidhahda 100% whey protein oo qaacidadaas baan isticmaalaa midii u sarreysa 85% 90% midii isiisa yaan soo gataa kadibna ingredientskaan fiiriya waxyaabaha lagu soo daray waxyaaba fiican haddaysan ahayn shalafkan ku celiya waxyaaba fiican haddaysan ahayn hadday wax fiican taana waa qaataa saan ku ogaadaa google-ka ii sheeg waa ku qoraa maxay tahay waxaa maltodextrose bababa maxaa laga wadaa isagaa ii sheegay okay midaan baan soo gataa marka haddaan rabo miisaankayga inaan kordhiyo waxaan ku shiitaa khudaar iyo waxyaaba aan calories ku badnayn baan ku shiitaa haddaan rabo inaan baalkan calorieskayga badiyo oon rabo inaan miisaankayga kordhiyana waxyaabaha calorie ku badan yahan ku shiitaa sida baalkan la granola oo kale fruitiska la qalajiyey natiska waxyaabaha calories badan baa halkii saxab yaa waxaa ku jira intaasoo 100 oo calories baa ku jira tan iyo tan haddaa isku shiidatid mass gainer caafimaadkaaga u fiican oo raqiis waxaad nin isugu soo kaa dardara ahayn baad helaysaa ya fruit juicesku sidoo kale weynay maxaa yeelay baalka fruit juicesku calorieska ku badan maxaa yeelay 2 glass baa cabaysaa 300 oo baalkan calories baa ka helaysaa tan haddaad tan ku shiidatid dhowr xabo tana ku dartid ayadoo ku soo baxaysa malab baa ku darsan kartaa bal adoo malab heli kara muxuu nin qashin kale kaaga gadaya malab yaaba heli kartaabe haddaan rabo inaan anugu aan samaysto waa because aniga wasaan sameeyo avocado aan ku shiitaa baalkan la yiraahdo peanut butter baalka la yiraahdo peanut butter kaas aan ku shiitaa ya fakar yaa laga faa'iideysan waa muhiimaddan maxaa weeye inaad fakarto oo laga faa'iideysan waa video aad u dheer waxa waa ku mahadsantahay inaad daawato ilaa dhamaadka ii subscribe gare walaalaha la share gare wax badan cilmi fara badan baa ku jira ya ma umaleyn in video saan oo kale xataa internetka luqadaha kale uu ku jiro waa mahadsantihiin waan idin duceeyaa